بسم الله الرحمن الرحيم. وحان سلام يا لمان دغي سنيسا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا waxay ila tahay in hadda ay noqoto arrin la wada og yahay xaaladda ay Soomaaliya soo gaartay oo in waqti la rabay in saacadahan oo kale lagu mashquulsanaado doorashada dadweyne oo shacbiga Soomaaliyeed codkooda dhiibtaan waxaan muddo lagu mashquulsanaa waxaa ka badan 6 bilood dadaal ayaa waxaa lagu mashquulsanaay in ay heshiiyaan gobollada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyaan nidaam على الأقل lagu heshii karo oo dadku ay doorasho ku geli karaan baarlamaan cusub lagu keeni karo doorasho ma jirta baarlamaan cusub lagu keeni karo inay ku heshiiyaan ayaa waqtiga qaatay waqtigiin tashriix la soo qabtay inta la isku khilaafay waxaa la isku khilaafsanaa 4.5 wax la yiraahdo iyo deegaan 4.5 iyo deegaan waa isku mid dadka ayaa laba magac lagu kala bixinayaa waxaa dhammaan waxay ku dhisan yihiin xulitaan in xildhibaan la soo xulo oo mataqaanaa dadka ayaan dooranin ama dad la soo xulayo ay xildhibaanka soo doortaan sida qaar la sheego marka hasta waxa waaye xaaladaas xaalad caadi ah laakiin xaalad lagu qasbay hawaayo wada kale furan ma jirto wadooyinka dhan waa la wada xiray wadooyinka saxda ahaa oo annaka aan soo jeedinay muddo sanad iyo bar ka hor aan soo jeedinay oo doorasho la samay karo waxaa muuqata inaan dowladda maanta joogto in doorasho habin haddana waxaa la soo xaalad runtii aan dariiq kale u soo furay in bal hadda kan hadda lagu heshiiyey sida loo qurxi lahaa oo musuqmaasuqa iyo mataqaanaa xuquuqdoodka looga ilaalin lahaa in laga shaqeeyo ayaa muhiim دكتور باديو ما جرى ولا عاد قبطان أو كوادا إن دور شدو وقت يدا يسندعين دولتنا وقت يكون درسته. وورد متقارب هذا وقت إنه يكون درسان وحا أهين سو أهين هيك فكرة بهاين أبحث يوم حلو ما جعبة في الجلوس كده يقول تكنيكال إكستنشن تكنيكال إكستنشن هو إن شاء الله أنت اللي قدام هو وقت هذا لا يحضر هالوقت أم بس العلب هالوقت أم بس صبر هالوقت أهين تعرفنا وأهين أي وضع خبان كل وقت حيالي معين حكم تسيج جوجان زائدة وفكسبان تعرف هو أهين مقطع حاجة وحاولها هيك الشقيرة هاي لما أرسل مرة مقطع حتى إنه يكون قبل ترى وقت هذا حري حوش حتى ولا يسقط ظن هو هذا marka hadda adinku maxay idin qorsheysan maadaama dadkii isbedelka doonayay inay saameyn ku yeeshaan aad kamid tahay waxa kaliya hadda anaka aan waajibaadkeenu waxay ahaayeen inaan dowladana u sheegno shacbiga Soomaaliyeed ku baraarujino midana waa u sheegaynay anaka wax kale aan qaban karno lama arko dadka inaan baraarujino inaan u sheegno dalkooda meesha ku socdo xalqa socda oo dhacaya dadku ay allaafta uga noqdaan ay dadku mataqaana ugu baraarugsanadaan haddii wax laga qaban karo laga qabto maxaa yeelay hadda marxalad hadda kana tooba meesha daadku afar ma jiro anaka dadku waxaan ku baraarujinay in dowladdaanu ay sahrabeen in doorasho qabato inaan dowladdaanu hadan isbedel sax ah oo ka dhaco in dowladdaanu ay ku fashaanto wax kasta oo tabanaysa dadku hadda wada u bixiyeen arrintaas sheegid ma afto waqti ay jirto dadku ay fahamsaneen aan u sheegi jirno inuu ay celi jirno laakiin oo la soo maray hadda maanta waxaa dareemaya muxuu ahaa gabadha Soomaaliyeed suuqa ku gadaysa mataqaanaa muxuu ahaa ku gadaysa shaaha ayaa dareesan askariga Soomaaliga ah ee albaabada taagan oo muxuu ahaa maalin kasta ku imanaya goobaha dagaalka ayaa dareesan in dowladdan ay soo bixiyso waajibaadkeeda marka hadda sheegid anaga naga dhaqto laakiin waxaan rabnaa kaliya in hadda loo diyaar garoobo waxaa maalin kasta waxaa salaad wada loo tukanaay hadda xaalada awoor waxaa waaye in baarlamaan cusub la keeno la rabo aan rabnaa inaan qorsheeno baarlamaan cusub baarlamaanka in fiicnaa soo ka imaanaha ka shaqeynaynaa dadaal xoog badan lagu baxsaa rabaa hadii Soomaaliya dowlad fiican soo baxdo waa in ka shaqeysaa in baarlamaan fiican baarlamaanka hadda Soomaaliya yeelanayso waxaa lagu soo xulayaa nidaamka 4.5 Puntland ugu dambeysay oo diidaneedna hadda way aqbashay sababtay doontaba ha ku aqbashay marka adigu sidoo kula muuqdaa heshiiska lagu gaaray Garowe oo dawladda iyo Puntland ay wada gaareen sida muuqata Puntland shacabkeeda iyo maanta dawladdeedu waa isku raaceen inay diidaan 4.5 laakiin markii aad moodo gacan mareejis xoog badan oo international community-ga ah muxuu ahaa la dul saaray
وقبيستي وحكو قصدنا بين أيكونا إني اسكالقان ماركتي inkastoo ay sala ficnayn dad badan oo Soomaali ay sala ficnayn markii la bilaabay 4.5 ma ficnayn ay naftooda 2000 markii lagu heshiisku ahay in laga gudbo ayaa la rabo oo doorashada weyn loo gudbo dadkii markii doorashada weyn loo gudbo si waayay oo madaxda iyo maamulka joogtay ama wadada hayso ama xataa aan hayso dadka ahdeega si waayay doorashada weyn ahdeega si waayay hadda waxaana marka in xalka أنا ملاها أول ضبي في سبعة في وعرك مركز فيديان إنت ودخل واحد الفرم أسجل كمبرمات هذا واحد وها طبعا نزل بيت الله نبغى بركلاته لكن الوصول نقول لك يلا بعد حاجة وحاها أنا لقيت حين خبر دور سواء لا يبغى خبر يا جرا لكن أدخل صوبا وأي دور إذا كلية دور صوبا لكن ما كرتها لا نفكر في الدور ما كرت وشط يدك كيف تعامل جسد الخطورة يا حيوان اللي هو بالرجال أو مطعنا أو كل وكيل وصلنا مركز شعب الصومالية كأرهاب على يربا يا أبو يحمد ما يحتاجوا وإلى الوجابة وكان جد كده لما صحراء معها بيوقون حارب من الجار وإلى ديار كورونا ورشة الدنيا وإلى ديار كورونا ورشة حزبية وإلى ديار كورونا ورشة بس أكثر وضبطية وإلى ديار كورونا وعند الصومالية هم عن دولة المارسو يقول لك على كذا أنا سنة عشان ما كذا مركا دب لها مركا حتى حالتها هذا أو طبعاً بالله بيسبب فوربر دفاش حنا الدولة الآن فوربر دفاش الوصول بالله لكن ولا جد بالله يهم حربنا مركا صارت كان هنا كل من فوربر دفاش علم قدام أقولنا فوربر دفاش ودك قدام ورشة دولة الصومالية هذا الصوتر وجعلنا على شعب الصوتر هي برلمان شعب الصوتر هي شفت الضغط أو مسؤولية قاطعة وضدك الصومالية كمان الروح الربانة في ذا الروح الربانة صنع ملاحظتان إلى أن الجارة ياهو عندك أصلا سوا جعبر كاسة سيد الجاري ناي إلى سبحانه وتعالى متخلق الآخر baadi ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa iyadoo haatan dawladda waqtiga uu harsan yahay isbedelkaas aad sheegaysana la doonayo in la gaaro sanadka 2016 haddana magaalada Muqdisho waxa ka dhacay dilal qorsheysan saraakiil ka tirsan dawladda ayaa la dilay xildhibaano ayaa la weeraray marka arrimahaas sidee u saameyn karaan doorashooyinka iyo isbedelada la doonayo in dalka hadda ay ka hirgalaan arrimahaas waxay calaamad u yihiin arrinta ku horjeednay oo dawladda maanta joogtaa inay ku fashalatay amnigii caasimada inay ku fashilmeen iska dhaaf inay meel kale amniga keenaan ku fashilmeen mataqaanaa in dalka Soomaaliya amnigiisa gaarsiiyeen meel kasta iska dhaaf caasimadii iyo deegaanka ay joogaan dalka Soomaaliya ayaa maalin kasta xildhibaanada lagu weerarayaa ciidamada Soomaaliya lagu weerarayaa haldoorka Soomaaliya lagu dilayaa amniguna muxuu ahaa magaalada Muqdisho oo adaabeeda la yaqaan oo wadooyinkeeda la yaqaan oo jidkeeda la yaqaan oo haddii shaqo laga qabto amnigeeda la ilaalin karo la xubo haddana haba yaraatee arrintan waxaa waaye ma aha arrin farsamana ma aha arrintan asalkeedu waa arrin siyaasadeed madaxda dalka ugu sarreysa ayaa mas-uul ka ah amni xumada mas-uuliyaddu ma aha mas-uuliyad askarta wadooyinka taagan ma aha gaajaysan oo aan lacagta la siinin oo aan gaadiidka la siinin oo aan kabaasitaga lahayn oo aan la tababarin ma aha khaladku waa khalad siyaasadeed dagaalka dilka la dilaayo waa dil siyaasadeed dil niman muslimiin heer iska dilaayo keliya ma aha dad siyaasada iska dilaayo waaye marka haddii siyaasadu ay noqon waayaan kalsooni haddii madaxda lagu yeero waayo madaxdana hor ka goyso amniga in laga shaqeeyo oo madaxda meelaha iska marmarayso sheeko barlis xasanayso isku Soomaaliyeedna gaajo dirayso iyo muxuu ahaa iyo abaar iyo muxuu ahaa iyo oraad ay diraysaa hadda waa muuqataa mataqaanaa xaajadii muxuu ahaa inay soo xooreyn marka hadda ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inta dhimadan ilaahay inuu naxariisto dadkana shacbigana waxaa rabaa inay isku duubaan amniga ilaashadaan dowlad amniga